Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda dhammaan meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada channelkeena asxaabta hore la joogtay asxaabta igu cusub waxaan idin leeyahay soo dhawaada insha Allah maanta waxaan idin wadaa quraac yar oo fudud insha Allah sida aan u suubiyay iyo waxyaalaha aan ka suubiyay waan idin la wadaagi doonaa insha Allah waa ujeedin quraacdaas quruxda badan waay oo fudud waxyaalaha aan ka suubiyay ayaa hadda idin la wadaagi doonaa insha Allah asxaabteyda halkaas waxaa ku haystaa xabad moos ah ku haystaa 3 qaando sokor aan ku haystaa waa 3 qaando sokor iyo haaf yar waaye cisbo yar aan ku darsaday waxaa kaloo ku darsan doonaa xabad ukun ah waa ujeedin xabad ukun ah waaye waxaa ku soo darsan doonaa koob caano ah waa bakeeri caano aan ku soo darsan doonaa insha Allah intaas waaye hadda intaan isku soo shiidaa markaa soo shiido aan isku imaanayna insha Allah asxaabteyda halka waxaa ku haystaa bakeeri bur aan ku haystaa waa bakeeriga hadaya aan caanaha ku soo cabiro waaye asagana qiyaastiin isla socdaana fiican insha Allah haddana bakeerigaas burkaan ku soo cabirtay qaando baking powder aan ku darsaday halkaas wax yar oo qaando haafkeedo yariis ah oo foodeeda hore oo waxa waaye carfise waaye marka hadda inta hadaya aan isku soo shiiday aan hadda ku qasaya kiskis aan ugu shubaaya hadda marka hadda waa isdhex gelinaa si fiican oo isku walaaqaya qaandada marka qaandada hadhow isdhex geliyana gacanta la geli doona insha Allah qaandada waa ka bixin doona marka asxaabteeda intaas waa insha Allah hadda xoogaa yar aan ku soo shubay isleegiin waa xabada moos bakeeri caano iyo xabad moos waaye marka isoo dhex geliya isku imaanayna insha Allah haatan asxaabteeda waa soo dhex geliyay si fiican isku soo geliyay ma sha Allah ujeedin sida quruxda badan u soo qasay marka xataa ma lahan kurtun kuskus waxas dhan ma lahan si fiican u soo qasay soofta camal ka soo dhigay hadda indhay soo yeelatay waa ujeedin baking powder-ki waaye marka hadda birti dabka saarana hadda birti waa soo saartay wayna soo kululaatay burkii aan ku shubaaya ujeedin marka asxaabteyda quraac yar oo fudud waa insha Allah dadka gaaska qaba xataa way fiican tahay dadka oo maaragtay saliid diiday sababtay saliidna kuma duwin qamiirna ma lahan marka ma sha Allah waa ujeedin quraac yar oo fudud waaye xataa subax canjeelada marka ka caajistid alaabta xataa ku dooran kartaa ma sha Allah walaal yar oo fudud waaye marka hadda cabaar u kaadina insha Allah markay xogaa soo qalasho dhinaca kale u rogi doona insha Allah marka asxaabteyda intaas waaye intaan waday ka faa'iideysi wacan insha Allah waa alaab yar oo fudud waaye oo inaba caadi ahaan ay ka heli doontiin insha Allah marka hadda waxaan suubinayaa hadda dhinaca kale aan gadinayaa maadaama hadda ay xogaa soo qalashay dhinaca kale aan gadinayaa si ayadana dhinaca kale si fiican ugu soo bislaato insha Allah marka asxaabteyda intaas waaye inta idin waday insha Allah marka hadda waxa suubinayaa way soo guduudatay dhinaca kale idin tusaya ayadana sidoo ku soo baxday waa kasaa saasay ku soo baxday quruxdaas ku soo baxday waa ujeedin guduud ma dhahda ma sha Allah macaankeeda lagama sheekeyn karo marka waxa suubinayaa hadda saas la ku soo wadaya marka soo dhameeyo aan isku imaanayna insha Allah waa ujeedin quruxdaas ku soo baxday xabadan leedo tusaa insha Allah sida aan suubiyay marka waa ka asxaabay inta idin waday canjeelada marka ku cajisto kale waa ku tuuran kartaa inaba caadi ma ahan quraac yar oo fudud waa insha Allah ka heli doontiin marka waxa suubinaysaa koob shaah u qaadanaysaa ku caawisa ma sha Allah qamiirna ma lahan saliidna ma lahan waa ujeedin saliid dhanna kuma darin marka asxaabteeda inta idin waday oo idin la sheergareynaya marka muuqaalkeena intaas uu ka egyahay asxaabteyda adaa ka heshay like comment salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu